koowaad in dowladda federaalka ah ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dowlad goboleed ah in deegaanada doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ah lagu asteeyo 2 magaalo oo caasimadaha gobolada uu ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codaynaya ay noqdaan 101 ergo oo metelaya beesha wadaagta kursigaas in xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dowlad goboleedka in qoondada haweenka ee 30% ah la ilaaliyo in baarlamaanka heer dowlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare in xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland ay soo doortaan ergo matasha oo wada jir ah in doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ay ka dhacdo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabmi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo 1 November 2020 in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay'adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan madaxdu waxay adkeynayaan in xorriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka ku meelgaarka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka sidaas darteed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor ah u tabiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso lagana fogaadaa wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas'uuliyadda kaga aadan doorashooyinka shirku waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dowladda Galmudug sida ay u martigeliyeen shirkii taariikhiga ahaa ee Samareeb 1 Samareeb 2 iyo Samareeb 3 sidoo kalena waxa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka Banaadir sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo wufuudii ballaadhnayd ee la socotay waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyay muddadii wada hadalladu socdeen isagoo xoogga saaray in wada jir iyo wada ogol lagu dhameeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka madaxtooyada dalka